صحيح كاين يقول قريب الله دحمر iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafadad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaaga banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadaydii iyo ehelkayga aan u noqdo hooyadayba kaligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay حكوري أنت أندلي بهذا الفيعان ويجهد قفنا سكما مقال وحاول وحان كوري ورافر ركعات أنت تكان أيه ميك هذين كرتامر هدادي الدليسو مركز وحو يري وحد تكتع أنت أضربت وحاول وحان بالله بالصلاة وحان اسكود أحوذي دعوينيه آيات قرآنه قلبي جيك كسر دعيسي آيات قرآن كي وحيت أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلههم مع الله ayadaas qalbigayga ku soo noqnoqonaysay ducaduna waxay ahayd yaa waduud ya dhul arsh al majid ya fa'al lima yurid ducooyinkaas ayu akhriyay aghithni ya mughith wa aghithni bi ku'al ali ducada markuu akhriyay yaa rakacadihiisa ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isageena salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaas uu ninkii dilay waa weydiiyay oo wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibu al-mudarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudariinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas aan anigu iska rabtaagaa buuri dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqifni marka lahayd albaabka koobaad samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaacidii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiibon koobo ilimid walaal waxaan ku leeyahay kuma amrayo waxaan ka dalbayaa sin xariisa shariidka kooban وآياتها القرآن كي حديثة هي قصص كإسلامي كتبان يهين عدة أدجارسين كرتوردن جارسي أنت كوجي كرتوردن أشلا شير جالس